ninka la yiraahdo deeq subxaan goosoon allah ay war ay looda deeq goosoon ninka la sax yiraahdo in adeer waaye ay dhalay oo laangaab ah ninka buuf maanta si fiican u buuf waan qarto sax laangaab waa helunaar ma maqli jirtay السلام عليكم ورحمة الله waxaa meesha u soo galay nin la yiraahdo mawlud baan u soo galay waxaa la yaabala waxaa maqli jiray maana waalan misaadan baa laga heesayaa soo soconaysa yani waxaan idin sheegayaa waa suldaanka waa la saaray oo khadka laga saaray wallahi waan qosla it's wonderful waa wax lagu qoslo weyn soo garan ciwaankaaga haddii adigu aad magaranaysa deactivate garayso hawada ka saarto for security purpose maaha in la yiraahdo hawadan ka saarnay hawada maxaa hawada laga saaray adigu ma waxa tahay magaranaysa ninka Facebook iskale ninka Facebook iskale aniga uu iga xidhi karaa waa sax waa saqajaan liibaan isaad soo nabiil waa run waa saqajaan ninka aad sheegaysaa waxaan sheegayaa marka dadkan ka daba geenaya dadka waxay leeyihiin waxa weeye horta ninkan ka hadlaynay timaha weyn la eeg timihiisa ma maydho shaamboo buu iibsan kari waay wuxuu rabaa inuu isagoo noocaas dad u sheego wariya dulliyow deeq tima weyn oo dhageyso baan ku fariin halkan ku furaya soo dhawaada mawlud baa marna live uu soo galay live-kiisa soo daawaday waxaa loo rabay oo ka hadlay oo u soo galaa rabaa inaan fasiro ka daba fasiro say tahay ayaan u fasiraya dadka Soomaaliyeed waa dad wallahi cadaalada jecel oo masaakiin oo wax maqla oo raali ah dadka Soomaaliyeed qof ka raalisan Ilaahay adduunka ma abuurin waa waxay u burbursada Soomaaliya wax walba oo ka leeyahay madax iska raaricinayaan marka waxaan rabaa in wax aysan sheegaan rabaa halkan baan ka hadlay imika wixii ka dambeeya halkan baan ka hadlay halkan iga socda kolba meeshan u baxo ayuun baa ila soo soconaysa yani waxaan idin sheegayaa waa suldaanka waa la saaray oo khadka laga saaray wallahi waan qosla it's wonderful waa wax lagu qoslo weyn soo garan ciwaankaaga haddii adigu aad magaranaysa deactivate garayso hawada ka saarto for security purpose maaha in la yiraahdo hawadan ka saarnay hawada maxaa hawada laga saaray adigu ma waxa tahay magaranaysa ninka Facebook iskale ninka Facebook iskale aniga uu iga xidhi karaa shalay saacadan kale markii uu ahayd mise xoogaay hal saac ka bacdi ma garanayo mawlid baa live soo galay markuu live ka soo galay wuxuu caayay beesha daarood wiliba marjeeteen deshiisle leelkase ogaadeen madaxan kuma jiro intuu caynayay qabiiladaas caayay wuxuu ku soo daray anigoo ah happy July and happy kowda luuliya qadar cabdi wili ma nagaar anaga Soomaali waxaan ma gaarnaa wili ma nagaar biriya u soo gali doona caalanka Soomaaliya xiran doona wili ma nagaar kaba hor dhacayo inaad degdeg ma rabo caalanka Soomaaliya u soo diyaarsaday tomorrow kala doona marka uu soo galay wuxuu caayay beesha daarood aniga beesha daarood waxba igama galin aniga daarood ma artay shakhsi baan ka ahay aniga ayuu caayay Facebook-giisa waan ka xiray markaan xiray live qoraal baan soo qoray qoraalku meesha ku jira waxaan dhahay Mawlid Abdullahi Umar xitaa magaciisa wala saa uma aqoonin because waa soo qoray shalay qoritaanka soo qoray waan bartay Mawlid Abdullahi Umar Facebook-giisa waan ka xiray ugamana xirin in uu qabyaalad uu ka hadlayo oo daarad caay aniga waxa lagu wasaynaa qabyaaladistahay in qabiilada Soomaaliyeed ka hadlo qofna uu ma xiraayo inuu qabiilka oo daarada soo caay waxba igama gelin aniga daarad yahawi iyo isaaq iyo dir iyo balaayo dhow isii ma taariga isku mid bay yihiin sidaas uu ma xirin qoraalkii ku jirta wali uu qorayaa waxaan uga xiray deeqiisood ducaay deeqiisood waa lama taabtaan deeqiisood waa lama taabtaan untouchable ba aniga ahay aniga haday caydid Facebook-gaaga waa asagana suuq ka baxaya saddex bari baan shalay ka xiray waan sheegay hoos baan ku soo qoray kamtiga waa arki kartaan 3 days ka bacdi holiday inta lagu jiro falliga holiday-ga ayaan 3 days uga xiray baan dhahay laakiin hadda sheekadii waa bedel caawintu live soo galay buu wuxuu yiraahday dadka deeqiiso iska igaba xirina dad baa xitaa weydiiyeen war live-ka maxaa u tirtirtay Mawlid live ma tirtiri jirnay wuxuu dhahay live-kii ma garana wax ku dhacayo 2 minute ba soo hartay xitaa 2 minute ba soo harin waxa oo dhan wixii waligu soo duubay live-ka daa iska deysaan wuxuu soo duubay intuu noolaa ma arki kartaan saddex bari baan ka xiray laakiin hadda waan ka daba shaqay waan ka daba tagay for life baan ka xiray ilaahay u naxariisto saddex bari bay ahayd asxaan bay ahayd Soomaalinimo iyo xoogaa baa dareemayay laakiin caaw maadaama marba ay ugu celiyay for life baan ka xiray mar daba ka musu gal dool magacaas ilaahay ha u naxariisto dadka Soomaaliyeed uu sheegay ana iska xiray uu ii soo noqon doonaa shalay markuu taabtay waxa loo sheegay bum window uu furay wuxuu ahaa 72 hours ka bacdi Facebook uu ku soo furmi doonaa laakiin hadda window kala u tagay hadduu musor nooga soo qaaday si u taala for life u diray inuu xirnaanayo
waa ku daayay facebookaas suuqu ka baxay mawlid aad baan uga xumahay saaxiibkii ahaan jirtay weli aan saaxiibtinimo waa ku qabaa laakiin caayda iga daa haddii aa weli saaxiibtinimo rabto waa goonideena waa xiriya laakiin facebook uma dhibeeraysay dadkan caawa in ka badan baa ku daawanaysa xarig ku daawanaysay dadkan haddii ku raabaan ay ku jecel yihiin meel walba aad ku raacayaan wax weyn ma aha wax weyn ma anigu kuma caynaan qof ma caayo shakhsi intaa soo gala ma caynaayo والله إجت أنا قف عين ولي ده صقري قف شخصية معينين أو بالآدم ده كان إله أبورتي وحي مضيه إلا حرم أيوه ده كان بالآدم ده كان ده كيس حكرة إله إنه بتقوله قراي ده كان وكراميسيه كرامته إلهي سيء هذا كما قال جديد مركب واحد نقول شيء يا مولد قف دنتار لقى سمراء فيسبوك أسواد دنتاي إلهي سمري إيبارها كاسيو وادي بكمسو جري دونتي ده قصد واحد لوبوتي معها wax social media laga soo caay ma aha wax la iska soo hadla ma aha deeqoysad waxba laga bartaa qoraal iyo waxa soo dhigtay xidda dambiga ka yaraaday wax walba ay soo caynaysa qabiil walba iyo xidda waxa soo cayday fanaanad Soomaaliyeed oo qaran oo liira Qodob Cabdiraxmaan live-ka meesha kugu dhex jiray xitaa kaas lama arki doono wuu ku daayay systemka dhan wuu ka baxay deeqoysad oo inuu ugu mahad celisid wayna deeqoysad oo mahadsantahay wax walba aan dambi ka soo hadlay aan soo qoray maadaama waadan bal daawan karo meesha ku jiray xidda Google-ku wuu ka baxay maadaama Facebook shutdown noqday wax walba oo ku xeernaa 3 days gudahooda uga baxayaan hawada xitaa Google lama arki karo waa dambe inuu jiray lama marayn doono marka aniga laftiga ajar baa igu jira marka adigana ka naso haddii caydu sii badato haddii sii socoto ka hadda haysatid ayaa la iskaga daba imaanayaa cayda iga daa عايدة جدا دارو دارتي عاي قبيلة دارتي عاي وحابتي صميع قف كلا دارتي عاي أنا ديق قصد بالي لها إن هذيرو مجعل اللي عاي اللي حكت مجعلي أنا وحان جعلها هاي دتك إن نبتقليو أنا وحان جعلها اللي نبتقليو وأنت سكليه إن نبتقليو وكن نبتقليه هاي تاباني كم تاباني أنت صانع غنا أنا هذا كان لسيا صد الصومالية مدح صومالية سياسي صومالية سياسي صومالية جروسو تشوغل هادو صار من ديق قصو إنه كهالله gurigiisu maartay caruurtiisa dhaqan lahaa haduu sadeeqiisu rabin aanu madax ii yahay aanu ii shaqeeya aniga maartay oo hawl yahay inaan ka hadlan xaq baa u leeyahay marka intaas ku eegtahay wuxuu yiraahdaa deeqiisu igama xirine ana iska xiray muxuu maanta magac cusub oo la soo furay uga soo gali waayay horta isweydiiyay ina dad daacadtii ina sitawaatiin dad wallahi niga daacsan Soomaali ma arag muxuu uga soo gali waayay facebookiisi maxaa kulmiye aniga ma la shaqeeya maskaxdiisa ma ku jira markaas saa uga xiray wuu qoran yahay markaas saa uga xiray waxa rahay mawlid waan ka xiray maxaa markay maanta sa ka yarsiiyay ana iska xiray facebookiisa ma aniga sa ku dhex jira qulubtiisa la shaqeeya oo uu iska xiray deeqisado soo hadal oo waxa tirada facebooki wuxuu dhigi doonaa mawlid ana iska xiray miyuu dhigi doonaa waa may ma dhigi doono mawlid cadeen ba ka haya intaan ka xiray ka hor bi soo wacay wuxuu deeqisado waan ka hadlayaa waxaan ba sheegayaa daarood baan ka hadlayaa waxaan dhahay warkada deeqoysod ka saar waa wada hadlaa cadaynta waa hayaa warkada waxaan la hadlay more than 40 minutes baan la hadlay warkada deeqoysod haddaad isku sameysay in adeero facebookaaga wuxuu waa wallahi inaan been sheego wallahi ilaa cadaabta igeeris wax kala dhin waan soo weesaysanayaa way ugu dhahay waa he soo weesaysanayaa wax ugu dhacaaya malaha haye waan dhahay soo weesayso wax ilaa cadaab inuu wax kala dhigeen waa soo weesaysanaa wada la faragelaya warkada markaas aan ahay oo marka qabiil su'aasha weydiiyo oo marka qabiilada iyo balaayada caynaysi iyo dadka islaameed ma inta u soo weysista soo gashay markaas weysada iska jabiya tii hadaba tan maxaa sameynaysaa mada hadda waan weysaysanay wax ugu dhacay malahan waa soo weysaysanay waa soo galiya wuu baxay wuu soo weysaystay waan weysa qabaa ugu yiraahdo waan galaya hadda haye gal baan dhahay 10 minutes bay ugu qaadatay in hawada uga saar 10 minutes buu ku jiray 350 qof daawanaysa marka ka xiray ayaga marxaati ka ah dad 350 daawanaysa xalay ayaa marxaati ka ah inaan ka saara hawada hadda raadiya mawlid Abdullahi Umar ka raadiya Facebook inuu ni soo baxo raadiya xitaa wuxuu waligiis soo galay ma arki doontaan waxaan wali la sameyn baa ka dhigay marka in adeer waa ma ahan anigu dhahay aqoon bay leedahay waa ka aqoon badanahay waa ka darajada may waxa waa iisi qofka in looga xiro qofka magaciisa hadda soo qaadatid soo dhigtid qofka magaciisa xaq buu u leeyahay inuu difaacdo oo waxuna lagu sheeganin aniga waa iga xiran kartaa hadaa magacaaga soo qaato iga gardaranahay meelo la maraa jirta meeshaas maraysa dhac waa kala tuuraysa 1 second dad Soomaali waa wada barlaa 10 waa u barlaa
qof walba inta qofka kale inay ka xirto markay ka gardaran tahay laakiinse kuma dhagaysanayaanoo aniga igu keeno dadka Soomaaliya waa macalinkeed cunto aniga macalinka waxa bari iga xiranayaan waxaan bari kara ma ahan dadka Soomaaliya u soo jeedin kara ma ahan qof hadda ka hor xidda dad baa igu waasheen hadda ka hor baa wiil waayay madaxuu dhahay saaxiibo gabar baan jeclahay nin baa soo dhigo caynaya meesheeda fiiri masawirkii baan ka saaray masawirkii markaa ka saaro isoo wacay wuxuu igu yiri deeqoosadow maalin kaleeto kun jeer soo wacay qofkan kale ka saar kan kale ka saar waan blogareeyay turkigu joogay walahi hal jiray live walba soo galo soo qaban jiray dadka Soomaaliya waxay mudan in waxaan aad taqaani in qof walba looga xirto oo meel walba ku sameeysid oo aan dadkii ma adleeda aniga ka amar sareeya aniga ka kugu sameeynayo waa qalad wuxuu ilaahay ku baray sida xaqqa loo